waxaan joognaa dusha sare ee daartii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee Daawad waa mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweynaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halgamaagii weynaa ee mataqaana taariikhda Soomaaliya caanka ka ah ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo aad ula dagaalamay jiray gumeystaha taariikh badan raad badan oo kala duwan Soomaalida ay ka dhaxashay halkan waxa ka mid ahayd saldhigyadiisa ugu waaweynaa mid ka mid ah bay ahayd say waa dabaq ka kooban 3 dabaq waxa la dhisay 1898 ilaa 1902 mataqaana meelahaas dhismeedu soo gaaray waxa dhisay Salim Bajuri engineer la oran jiray oo Yaman ah waxaan ahay dadkii asalka duriyadii wax ka aasaasay degmada Ayl awoogay Axmed Saalax Bajuri iyo aabahay Salim Axmed Bajuri oo dooni ka soo tagay wadanka Yamanta doonta iyagoo u socda magaalada Bambaasa ee wadanka Kenya ayaa doontii waxa weeye ciladi gashay oo wadankan soo galay fursadaas oo qaaliga ah oo fursatu dahabiya ah ayaa waxa ka faa'iideystay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu intifaaqiyad la galay aabahay iyo dadkii markaa Yamanta la socday aabahay ay ku jireen Axmed Saalax Bajuri wuxuu yiri intifaaqiyada ana mataqaana wadankeena ku celinaya waxaan rabaa inaad ii dhistaan qalcado waaweyn sare waaweyn oo qasriya oo aan la dagaalamo gumeysiga kabal intifaaqiyada markay galeen Axmed Saalax Bajuri oo ahaa awoogay waxa uu dhisay sartan Daawad oo ugu horeeyay degmada Ayl waana sartii ugu horeeyay oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu ka taago Soomaaliya sayidku halkan muddo ayuu deganaa taariikh badan oo kala duwan buu uga tagay meeshatan wuxuu u dagay ay lahaan marka hore to strategic dagaal oo ah inuu mataqaana waxa weeye kaga nabad galo gumeystuhu la dirirayay iyo inuu halgankiisa halkan waxa weeye ka wado oo meel dagaal ay haato daarta laftigeeda waxa loo qalabeeyay qaab wuxuu yahay qaab dagaal ama taqaana waxa loo qalabeeyay waxaad arkaysaa meelo yar yar oo daldaloola oo loogu tala galay macnaha qofka ilaalada ay kor saaran ama hadii daarta ifan la soo weeraro ay dhacdo inuu ka dagaalamo qofka gudaha ku jira oo aan gudaha loo soo gali karin runtii inuu isagoo jecel buu sida gabayadiisa ka mid ahayd buu halkan ka guuray oo gabaygiisa ahaa reerkay kama soo rareen rabadinkii Ayl niman bay radaaminahay raalli ma ahayn waxaad ka dareemaysaa inuu sayidku isagoo jecel halkan uu ka tagay sawirka aan gacanta ku hayaa waa ninkan ii sheegay aabahay weeye waa Salim Axmed Bajuri waa ninkii dhismaha taleexiya abuuray weeye sarta Daawad oo dhameystiray weeye magaalada Ayl asaaskeedii haday noqoto beero iyo dhismaha ninkii keenay buu ahaa Salim halkan uu ku barbaaray oo ku koray halkan uu ka guursaday hooyaday buu ka guursaday walna hooyaday qof kale ka soo horeeyay walaalahay waaweyn baa jiray taariikhda anagu waxa ka sheekeynaa hadda asalka inay Yemen yihiin laakiin Soomaali baan nahnay Soomaalidana waxay ku mahmaadaa xigmada abtirsiya iyo ood baa la ka dhow ood baa dhow Bajuri asalka iyo taariikhda waxa sheekeynaya mooyaane anagu Soomaali caadiyaan hanay Soomaaliduna dad qabaa'il oo sharaf iyo karaamo leh oo abtiyaal wanaagsan leh weeye waxa uu qariibsanaa ama ugu cajiibsanaa ee aan kala kulmay waxay ahayd markaan galnay sarta in aan ku dhex arkay dukumeentiyadii ay isticmaali jiray dawladdii dhexe ee Soomaaliya ee burburtay taasoo waxa weeye isugu jira qawaaniin ama sharciyo iyo faylalkii ay maxaan dhahaayay ama galalkii dacwadaha kuwa dhamaaday iyo kuwa aan wali dhamaanin dacwadoodii diiwaangelintii la diiwaangelin jiray dambiilayaasha buugooda ama maxaan dhahay eedayaasha dadka ah waxa maanta kaliya loo baahan yahay waxa ay tahay in laga gaaro oo hadda la daba qabto waxaan soo jeedin lahaa tala ahaan in meeshaas sartaas la dayactiro oo waxa ku jira oo dhan loo sameeyo inta la nadiifiyo laga dhigo museum ahaan ama maxaan dhahay matxaf ahaan laga dhigo